dadku waxay ugu yeeraan taksiilaha taajirka waxaan ahay ninka kaliya Soomaaliyeed oo ku taksileeya gaariga la yiraahdo Rolls Royce Ghost magacayga Maxamuud Axmed Diiriye Guled baa la yiraahdaa wadankan waxaan imid 1989 qaxooti baan ku imid alxamdulillah school baan ka galay college baan ka galay 1996 ayaan shaqadan taxiga soo galay marka alxamdulillah intaas oo company baan maxaa u soo shaqeeyay imikana maanta company baan iska leeyahay alxamdulillah ilaahay baa ii fududeeyay inaan maanta anigu yeesho gaariga Rolls Royce qiimihiisu uu yahay maxaa 280,000 oo pound customer waxay madaxtooyo boqortooyo oo carabta ka timid footballayaal oo u ciyaara maxaa tiimka premiership ka ah oo kamid ah Crystal Palace kabtankooda kabtankii Ghana maxaa Michael Essien Steven Appiah maalintii waxaan ka qaadaa 114 ayaan ka qaadaa 12 saacadood airportkana waxaan ku tagnaa 200 oo gini colorka bluega waxaan ku doortay Rolls Royce baan u tagay Manchester marka waxaan ku yiri calanka Soomaaliyeed baan u geeyay gaari waxaan u baahanahay calanka Soomaaliyeed oo kale oo eg markaas kan gaarigan baa la soo saaray gaarigan bluega sidii waan ku doortay maxaa يعني وقف أنا هنا قف صومالي أهي success كيكونوا وصومالينيمو إلهي بمحله يوالد كي صور علي يودن كان كإيمت مركا يودت كان كذا شيء مركا الحمد لله تاسم قف أنا customer كيكونوا ويديان all the time حاجات كتمت إن صومالي أنا هاي دتك الصوماليات عادي عاد بيجوا تاجرين والسبورت في عم بانك هلاي صومالي لنا جوكتوا لهم الحمد لله waxay ugu yaabka badnaa oo markaan istaago oo meelaha maxaa Central London oo kale inay dadka anoo gaarigayga ku jira Rolls Royce Ghost oo astaanta calanka Soomaaliyeed anoo iska fadhiyo inay sawir ila dhacaan booliska Ingiriisku way joojin jireen bariga hortaan gawadhida yaryar wadan jiray imika maadaama Rolls Royce Ghost wato ima joojiyaan oo maxaa markaan traffic light meelaha iskaga nimaadno maxaa inta gacantii taagan iyagoo smile gareynaya yani maxaa oo faraxsan ayaan maxaa staafnaa waxaan iigsanayaa kambanigayga MAG inuu gaaro maxaa private jets inaan yeesho insha Allah future-ka ilaahay hadduu ila qabto maxaa inaan private jet oo Soomaaliya ka duulaya ilaa meel kasta dacalaha adduunka oo dhan insha Allah inaan yeesho insha Allah